bismillaahi raxmaani raxiim kulanti habboon daawadayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan halkan waa barteen YouTube-ka ee National TV qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay faahfaahino laga helayo qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Kismaayo iyo sheekh caan ahaa oo lagu dilay al-shabaab oo weerar ku qaaday 6 degmo oo ka tirsan magaalada Muqdisho faahfaahino ku saabsan ayaan idin hayaa wararkeena kalena waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka asluubta oo sheegay in markii lagu mashquulay siyaasadda iyo doorashada ay shabaab kordhisay weerarada ay ka geystaan magaalada Muqdisho ciidan ka tirsan AMISOM oo ka baxay Soomaaliya iyo kuwa kale oo ku soo wajahan wararkii ugu dambeeyay qorshe ay wadaan dawladda federaalka iyo AMISOM ayaa daawan doontaan xildhibaan ka mid noqonaya baarlamaanka 11aad ee dalka oo lagu doortay Kismaayo iyo Axmed Madoobe oo shir degdeg ah la yeeshay 5 xildhibaan ee maanta la doortay wararka caalamka waxa daawan doontaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo amar adag siiyay ciidamadiisa ku sugan xadka Ukraine wararkaasi iyo kuwa kale ayaan faahfaahin doonaa waa talaado 22 Febraayo sanadka 2022 fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka si ay dad badan u daawadaan haddaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebto waan kaaga mahadcelinayaa u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi waa hagaag mar kale kulan wacan aan ku bilaabo wararkeena magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay saacadihii la soo dhaafay weeraro ay fuliyeen kooxo hubaysan sida ay wararku sheegayaan laamaha ammaanka ee dawladda ayaa gacanta ku dhigay kooxihii weerarka soo qaaday degmooyinka la weeraray waxay kala yihiin Wadajir Howlwadaag Hodan iyo Boondheere dhinaca kale ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay kooxo weerar bambooyin gacanta loo adeegsaday ku qaaday saldhigga booliska qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir afayeenka booliska oo aan la hadalnay ayaa sheegay in kooxda argagixisada ah ay weerartay saldhigyada booliska Wadajir Hodan Howlwadaag iyo Boondheere isla markaana gacanta lagu dhigay maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday warbaahintana loo soo bandhigayo afayeenka ayaa sheegay in booliisku qabtay 7 ruux oo ku eedeysan inay soo weerareen saldhigyada booliska degmooyinkaasi howlgal culus ayaa xilligan ka socda qayb ka mid ah magaalada Muqdisho al-shabaab ayaa kordhisay weerarada ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho iyada oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku mashquushay arrimaha doorashooyinka dalka wixii ku soo kordha weeraradan al-shabaab ay ka geysteen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan waayahay qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan markana magaalada Kismaayo qarax xoogan oo laga maqlay jugtiisa inta badan xaafadaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka dhacay isgoyska Somali Star ee xaafada Calanley ee magaaladaasi qaraxan ayaa waxaa ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana la soo warinayaa in uu ahaa qaraxan mid gaarigiisa loogu xiray Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan wararka ayaa intaasi ku sii daraya in Sheekh Cabdinaasir uu qaraxaasi ku geeriyooday xilli uu dhawaan ka tagay magaalada Laascaanood isaga oo magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland u tagay arrimo la xiriira kulan diineed ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa gaaray goobta qaraxa iyaga oo xiray wadooyinka ku teedsan isgoyska uu qaraxa ka dhacay waxayna bilaabeen baaris hordhaca laamaha amniga magaalada Kismaayo ilaa hadda kama aysan hadlin qaraxaasi xilli maanta halkaasi ay ka dhacday doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wixii ku soo kordha qaraxan wararkeena soo socda ayaad kula socon doontaan waayahay qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan fadlan daawade subscribe saar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka si asxaab badan ay u daawadaan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ka hadlayay munaasabad lagu xusayay sanad guurada 52 ee ka soo wareegatay aasaaska ciidamadaasi ayaa ka hadlay ammaanka guud ee dalka iyo weerarada al-shabaab taliyaha ciidanka asluubta Mahad Cabdiraxmaan Aadan
ayaa sheegay in markii lagu mashquulay siyaasadda iyo doorashada ay al-shabaab kordhisay weeraradeeda. xoogaa waxaad mooddaa siyaasadda xaggeeda iyo doorashada markii loo jeestay ayaguna waa naga soo dabajeesteen cadowga dalka, waxaad mooddaa inay shaqadooda kordhiyeen, ayuu yidhi taliyaha ciidanka asluubta jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo wariyaasha kula hadlay muqdisho. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray, hadda ninkii ku soo aado oo gurigaaga kugu yimaado in la waraysto ayuu kaa rabaa, la waraysigaasi aan u diyaargarowno. dhinaca kale taliyaha ayaa faray ciidamada asluubta Soomaaliyeed ee uu hogaamiyo inay u diyaargaroobaan ka hortaga weerarada al-shabaab iyo sugidda amniga guud ee dalka. annagana waxaadna looga baahan yahay inaan difaacyada kordhino, raadinta cadowga xogtiisa inaan kordhino, ayuu sii raaciyey taliyaha ciidanka asluubta. hadalkan wuxuu imaanayaa iyada oo muddooyinkii la soo dhaafay ay kordheen falalka lidiga ku ah amniga sida weerarada iyo qaraxyada ee ka dhacaya magaalada muqdisho, waxaana ugu dambeeyey weerarkii xooganaa ee lagu qaaday saldhigga degmada Kaxda. waayahay dowladda Soomaaliya iyo golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ayaa dhowaan shaaciyey inay heshiis ka gaareen qaabka uu noqonayo howlgalka cusub ee bedelaya AMISOM. howlgalkan waxaa lagu heshiiyey in loogu magac daro ATMIS, wuxuuna bedelayaa howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo Soomaaliya ka jiray 14 sano ee la soo dhaafay, sida uu shaaciyey agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. dowladda federaalka ayaa in muddo ahba doonaysay in howlgalka midowga Afrika uu noqdo mid ka turjumaya baahida dhismaha ciidamada iyo amniga Soomaaliya si ay ugu suurto gasho dowladda inay AMISOM kala wareegto mas'uuliyadda amniga. howlgalka AMISOM waxa uu soo shaqaynayay tan iyo bishii Maarso sanadkii 2007, sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Maxamed Saciid Samatar ayaa sheegay in lagu heshiiyey in howlgalka cusub ee ATMIS uu dhaqangalo kadib marka ay ansixiso qaramada midoobe. ATMIS waxaa ku sii jiraya ciidamada AMISOM ee haatan ka howlgala Soomaaliya, hase yeeshee waxaa u furan inay wadamo kalena ka qayb qaataan. dowladda Soomaaliya, midowga Afrika iyo qaramada midoobe waxay ku heshiiyeen barnaamij kala guur ah kaasi oo muddo loo sameeyey. waxaa la go'aamiyey in bisha Maarso loo gudbiyo qaramada midoobe heshiiskan si howlgalkan cusub uu u hirgalo markay u codeeyaan 1 Abriil. waxaa Soomaaliya ka dhaqan geli doona howlgalka ATMIS, ayuu yidhi agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Maxamed Saciid Samatar ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka cusub uu uga duwan yahay kan AMISOM, in dowladda Soomaaliya ay awood ku yeelanayso in wax kasta ay ku socdaan ogolaanshaheeda. sidoo kale agaasimaha ayaa sheegay in heshiiskan uu dowladda Soomaaliya u saamaxayo in waqtiga ay soo gaabiso ama dheeraysato iyadoo ku dabaqaysa hadba awoodeeda. dhinaca kale waxa uu sheegay in heshiiskan uu sahlayo in ciidanka Soomaaliya laga taageero sidii ay u heli lahaayeen hub ku filan, isagoo shaaciyey inuu socdo qorshe cunaqabataynta hubka looga qaadayo Soomaaliya. sidoo kale waxaa isbedelaya sanduuqii bixi jiray qarashka howlgalka ciidanka shisheeye ee ku sugan Soomaaliya. midowga Afrika oo horey u bixin jirtay qarashka howlgalkaasi ayaa hadda gacanta ka taagtay kadib duruufo la soo darsay, balse beesha caalamka ayaa ogolaatay inay bixiso dhaqaalaha ku baxaya howlgalka ciidanka shisheeye ee Soomaaliya ku sugan oo hadda loogu magac daray ATMIS. waayahay weli baahinta wararkeenna ayaan ku jirnaa. waayahay markana wararka Kismaayo. magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland. kuraasta doorashadooda la qabtay ayaa kala ah Hoob Ewer 72, Hoob 130, Hoob Ewer 79, Hoob 112 iyo Hoob 136. waxaana ku soo baxay Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ku guuleystay kursiga Hoob Ewer 72, Mawliid Cabdi Maxamuud oo ku soo baxay kursiga Hoob 130, Maxamuud Maxamed Cumar Kuulow oo ku soo baxay kursiga Hoob Ewer 79, Cabduqaadir Maxamed Wacays oo ku guuleystay kursiga Hoob 112 iyo Cumar Yuusuf oo isna ku guuleystay kursiga Hoob 136. xubnaha soo baxay
ee uu ka midka yahay cabdirashiid xidig ayaa doorashadooda horey loo sii ogaa maadaama loo xiray kuraastan waxayna aad ugu dhow yihiin Axmed Madoobe. Jubbaland ayaa waxaa ka socota doorashada golaha shacabka walow ay weli caqabad ka taagan tahay deegaan doorashada labaad ee Garbaharey wuxuuna maamulka Axmed Madoobe horey u shaaciyay in doorashada aysan ku qaban karin gudaha magaaladaasi. si kastaba doorashada baarlamaanka ayaa qorshe u ahaa in la soo gabagabeeyo ka hor 25 bishan balse waxay u muuqataa inay doorashada dib u soo dhici doonto. waa hagaag dhinaca kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa madaxtooyada ku qaabilay xildhibaanadii lagu doortay maanta magaalada Kismaayo. xildhibaanada cusub ayaa waxay kala hadleen madaxweyne Axmed Madoobe sidii looga shaqeyn lahaa horumarinta deegaanada Jubbaland. 5 xildhibaan ee maanta Kismaayo lagu doortay oo dhammaantood rag ahaa waxaa ku jira Cabdirashiid Xidig oo mar Axmed Madoobe ku culoobeen siyaasadda balse markii dambe ay heshiiyeen. kursiga Xidig waxaa villa Soomaaliya ay u rabtay in uu ku fadhiisto sanadkan Cabdi Cali Raage oo ah la taliyaha arrimaha doorashooyinka ee madaxweyne Farmaajo balse waa la hor istaagay. sidoo kale wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdixakiim Xasan Ashkir oo raadinayay kursiga Hob Eber 79 waxaa loo xiray Maxamuud Cumar Kuulow oo Axmed Madoobe 2019 ciriiri gelin gaaray markii uu murashax u noqday madaxweynaha Jubbaland. madaxweyne Axmed Madoobe ayaa kursigii u raadinayay taliyii hore ee nabad sugidda Jubbaland Cornel Sahal Cabdullaahi Khalid waxa uu si fudud ku siiyay siyaasiga qaladiid oo maanta guuleystay. 5 xildhibaan ee maanta Kismaayo lagu doortay ayaa waxa ugu miisaan culus Cabdirashiid Xidig oo afmiishaar siyaasi ka ah baarlamaanka Soomaaliya oo 4 jeer kursigaasi ku soo laabtay isla markaana lagu tilmaamo ololeeyo xilligan doorashooyinka jiraan. lama oga cidda ay codadkooda xisaabsan doonto 5 xildhibaan ee guuleystay isla markaana wax macquul ah in Saciidani ay taageeri karaan xildhibaanada ka soo baxay Jubbaland. waayahay ugu dambeyn haddaan eegno wararka caalamka madaxweynaha Ruushka Vladimir ciidamada Ruushka ayaa lagu amray inay labada gobol ka fuliyaan wax loogu yeero howlgal nabad ilaalin ah. wararka ka imaanaya gobolka Donetsk oo ka mid ah labada gobol ee ka go'ay bariga Ukraine ayaa sheegaya in kolonyo gaadiid ah oo gaashaaman oo Ruushku leeyahay lagu arkayay gudaha magaalada ugu weyn. amarkan ayaa waxa bixiyay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. dhinaca kale waxa isa soo taraya cambaareynta loo soo jeedinayo go'aankii madaxweyne Putin ee uu labada gobol Donetsk iyo Luhansk ugu aqoonsaday dalal madax bannaan. aqalka kriminalka ee Ruushka ayaa sheegay in Putin uu go'aankaasi ku wargeliyay hogaamiyaasha Faransiiska iyo Jarmalka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo khudbad jeediyay ayaa dhankiisa ku tilmaamay tallaabada Ruushka ku xadgudub sharafta iyo madax banaanida dalkiisa. waayahay halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee National TV waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la jaanqaadka wararkeena. inta ku kulmi doono wararkeena soo socda waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo balse aan idin xasuusiyo markasta nagala soco National TV waxaad ka heli doontaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka.